ujeedada shirkan jaraa'id waxay tahay waa arrin yar oo kooban ka wasiir ahaan markii aan xilka la wareegay 2 Abriil waxaa jiray oo lagu wareejiyay documenti oo wasaaradda documentigii ayaan dib u eegis iyo korgelid ku sameeyay isla markaana aan xog wareysiyo la sameeyay shaqaalaha wasaaradda waxa ii soo baxay inay jiraan cabashooyin fara badan muxuu ahaa inay jiraan muxuu ahaa maamul xumo iyo inay jiraan maasuq baahsan sidaas daraadeed anigoo wasiirka wasaaradda warfaafinta ah mas'uuliyadna iga saaran tahay inaan maaragtay wax alaale wixii maasuq keeni kara laga hortago waxaan maanta qaatay go'aan ah inaan xilkii shaqo ka fariisin ku sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka iyo miisaaniyadda ee wasaaradda warfaafinta taas waxay ku timid waxay ahayd muxuu ahaa si aan dhammaanteen ula wada dagaalanno wax alaale wixii dhaqan iyo maamul xumo iyo musuqmaasuq loona horseedo maamul wanaag iyo dawladnimo ayaan go'aankaas qaatay mar haddii agaasimihii guud muxuu ahaa shaqo ka fariisin lagu sameeyay waa muwaadin waa mas'uul wuxuu xaq u leeyahay inuu eedeymahaas lagu soo eedeeyo iska difaaco annagana waxaan u gudbinaynaa xeer ilaalinta iyo hantidhowrka si ay baarid ugu sameeyaan inta baarista ka socotana walow shaqadii laga fariisiyay labada mas'uul haddana waxay xuquuq u leeyihiin dhammaan wixii xuquuq ah taas kadib بعدما أي مارتي بناناتي محوها جدي أقاسمها جود وحان أقاسمها جود سكم الجارة وقوم عابي عبد الرحمن يوسف عمر العدالة وهذا قرن إنسان وقنين مارتي هرما صحافة أد وقدرة سي لو دردر جليو حولها مهم كأ وزارة وهايسو قرنك جارهان بعد صحافة كجران تندولد يوتن gaarka taas kadib iyadana waxaan sameeyay muxuu ahaa isku shaandhayn ama muxuu ahaa waaxyaha sidaas daraadeed waxaan agaasimaha TV-ga qaranka u magacaabay Liibaan Cabdi Cali oo wada garanaysaan agaasimaha Soonana waxaan u magacaabay Haybe hore u ahaa agaasimaha qorsheynta waaxda maamulka iyo qorsheynta waa isku darnay iyadana waxaan agaasime uga dhignay oo maamulka iyo qorsheynta Naasir Xasan Xuseen sidoo kale waxaan isbedel ku sameeyay agaasimaha Radio Muqdisho waxaan agaasime uga dhigay Cabdifataax Daahir Jeyte waxaan bahda warbaahinta ka codsanayaa inay mas'uuliyiintaas si dhow ula shaqeeyaan si aan u dardargelino howlaha muhiimka ah intaas ayuu ku saabsan yahay maanta shirkeena jaraa'id aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh